waxaan rabaa doorka culummada inaan ku socono maadaama sida aan sheegnayba ay ka baxsan tahay diinta islaamka iyo dhaqanka soomaalinimada wixii meeshaas ka dhacay. waxaan rabaa inaan marka kelimad ku aadan munaasabadaas aan siiyo sheekheena sheekh mukhtaar sheekh ibraahim. sheekh mukhtaar salow. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى ثم ما بعد. أيها الإخوة، مدشان عاوة أنا سوون نمت ومدارو سوون جرتا عمبارين ينصيحين. أنا دور كيغو أما كلمة أن ربعاوة هلكنا كيرا هذا وكلمة نصيحة وأنا جيدنا يوم الصومالية قارهان ummadda waxaa weeye ku nool gobollada waqooyi, gaar ahaan gobolka Sool, gaar ahaan magaalada Lascaan. maxaa yeelay diinta islaamka waa nasiixa waay. nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi addiinu nasiixa. culimada iyo dadka diinta aqoonta u leh waxaa waajib ku ah, bal ilaahay ballan uu ku qaaday oo uu kaga qaaday inay dadka xaqa u sheegaan. ruuxii qaadanaya ha qaato, ruuxaan qaadanaynin taasi waa masalo kale. laakiin waa waajib ilaahay uu saaray in dhibaato markay jirto in farta lagu fiiqo, ayada oon cidna haba yaraatee waxaa weeye la jaraaxaynaynin, ayadoon cidnana looga baqaynin arrintaas ayada. maxaa yeelay diinteenna waxayna amartay inaan xaqa sheegno. walxaqu xaq, xaqu waa xaq, walxaqu axaqu an yutabac, xaqa in la raacaana waajiba. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay oo diinta uu nagu baray ummadihii hore waxyaaba lagu halaagay. waxyaabahaas ummadaha lagu halaagay ummadeenna maanta Soomaaliyeed meel kastay joogaan, gaar ahaan dhacdooyinka hadda u dambeeya noocaas oo kale ah, waa wadooyinkii ummadii hore lagu halaagay. nabigu wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam reer bani Israa'iil waxyaabaha lagu halaagay oo daanyeero iyo khanaasiir iyo qiirado looga dhigay inay ka mid ahayd markii ruux sharaf leh ama agtooda qiimo ka leh ama agtooda awood ka leh markuu dhibaato geysto inaan waxba laga qabanin. inamaa ahlaka aladiina min qablikum idaa saraqa fiihim, markuu xado ashariif ninka agtooda qiimaha waxaa weeye kale tarakuu way ka tegi jireen. waxaa lihi jira nin reer bani fulaana waa nin aan fooda la gelin karin. waidaa saraqa fiihim adaciif, ruux laakiin tabar daran markuu dhibaata u geysto ama waxaa weeye wax lagu soo eedeeyo aqaamuu calayhi lxad, xadday ka ogi jireen. taasi waxay keentay ilaahay inuu cadhabo subxaanahu wa tacaala. maxaa yeelay arrintaasi waxay xambaarsan tahay waa dulmi. dulmigana ilaahay tabaaraka wa tacaala raalli kama ah. aayaadkii hadda waxaa weeye sheekhu inagu maaragtay waxaa weye dal akhriyay, walaa taxsabana allaha gaafilan cama yacmalu daalimuun إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. إلهي سبحانه وتعالى أمت مركب الربا إنه هلاقو وحصبوا أوقاتها أما أسبابته أمدها هلاقو وحا كاملة ظلمها كاملة. إلهي وكشكي تاريخ أمده هوري وحا كاملة هي عاد، وحا كاملة قوم فرعون، وحا كاملة قوم إبراهيم. آياتهاس إلهي تبارك وتعالى كل وضوح كتل مامي قبل آيات كاس وكتل مامي sababta uu halaagay inay tahay dulm. في سورة التوبة إلهي وحو كيري ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ومضاها السلطان ولا هلاقي كل ولا هلاقي قوم نوح ولا هلاقي قوم إبراهيم ولا هلاقي قوم عاد بالله هلاقي ريع عاد بالله هلاقي قوم وحاوي أصحاب مدين بالله هلاقي النبي شعيب لودري والمتفكات وقوم لوط سيع الماضي إلى ذين كل قد بالله هلاقي إلهنا موسى ظلمين أيقع ظلمي قدر هذا الليل فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. تدكو هدي ظلم لي مادان وقدر لي مادان والنفط وضع ظلميان وإلهي ظلميان وأضمها إلهي ظلميان إلهي وحسود الدجية هلاقود. ummadda Soomaaliyeed marka waxaan uga digaynaa inay naftooda waxa weeye halaagaan. ruuxa walaalka oo muslimka dulmi markaad ku sameynayso
dulmigaasi adigu kugu soo noqonaya. laa tadlimanna idaa maa kunta muqtadiran fadulmu yarjicu cuqbaahu ila nadami tanaamu caynayka walmadluumu muntabihu yadcuu calayka wacaynu llahi lan tanami. ruuxa waxaa weeye madluumka ah marka waxaa weeyaan aada dulmido ilaahay buu baryahayaa subxaanahu wa tacaala. ilaahayna subxaanahu wa tacaala ma seexdo, adigu waad iska seexatay, ruuxii dhibaataysnaana wuu ku habaarayaa, habaarkiisana wuu kugu dhacayaa. walidaalika baa nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabada markuu la dardaarmahayay, gaar ahaan Mucaad ibni Jabal markuu Yaman u diray oo ku yidhi zakada iyo soo ururi, wuxuu ku yidhi wattaqi dacwata almadluum. hadda ruuxa uu ka soo qaadaya waa ruux muslim ah, waana xaq waajib oo zako oo lagu leeyahay, haddana maca daalika waxaa la yidhi iska ilaali oo ruuxu wuxuusan raalli ka ahayn ha ka qaadin, neefka uu jecel yahay ha ka qaadin. hadduu ku habaaro laysa baynaha wa bayna allahi xijaab. dacwada ruuxa madluumka ah waa mustajaaba, yarfacuha allahu ila asamaawaat ila alghamaam. ilaahay kor buu waxaa weeye u qaadaa, kadibna yuftax abwaaba asamaa. ilaahayna waxuu odhanaya warabu lciza waxuu odhanaya laansurannaki walow bacda xiin, wacizatii wajalaalii laansurannaki walow bacda xiin. hagaadhe ruux aad dulmiday oo aad waxaa weeyaan dhibaato u geysatay, ilaahay tabaaraka wa tacaala marnaba inuu kaa cafiyo waa ka suurtagal ma ah ilaa asaga waxaa weeyaan xaqiisi lagaaga qaado. walidaalika baa rabbi tabaaraka wa tacaala waxa uu leeyahay wasayaclamu aladiina dalamuu aya munqalabin yanqalibuun. dadka dulmiga la yimaada cirib xumada dulmiga way ogaan doonaan, ilaahayna ma halmaamayo. walaa taxsabana allaha gaafilan camaa yacmalu daalimuun inamaa yuakhiruhum liyowmin tashkhasu fiihi labsaar. inaad dulmido ood u xoog sheegato ruux kaa taag daran, ilaahay marnaba arrintaas ayadaa ka raali noqon mahayo. walidaalika baa nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo saxaabada maalmaha ka mida wacdinaya waxa uu ku yidhi atadruuna man ilmuflis, war ma taqaanaa ninka aan waxba haysanin oo mufliska ah oo caydha ma taqaanaa? markaasaa waxay yidhahdeen saxaabadu waa ninkaan xoolo lahayn oon dirham iyo dinaar iyo dollar toona haysanin. markaasaa waxa uu nabigu ummadayda mufliskeedu kaas ma ah, waa adduunya taasi wax qiimo ah, wax aba yaraatee qiimo ah ma laha. laakiin muflisku waxa weeyaan man ya'ti yowma alqiyaama, ruux maalinka qiyaamo imanhaya bisalaatin wa siyaamin wa zakaa. xaj buu la imanayaa, soom buu la imanayaa, acmaal saalixaaduu la imanayaa. laakiin muxuu imanayaa isaga oo waxaa weeyaan dulmi kii la odhan jiray waxaa weye dhinac walba uu ka hareeraya ayuu imanaya. wuxuu imanayaa isaga oo waxaa weeye akala maala haada, kaa xoolihiisiibuu cunay, wadaraba haada, kaasna wuu garaacay, wasafaka dama haada, kaana dhiiggiisiibuu daadiyey, wa akhada maala haada, kaana maalkiisiibuu qaaday. maxaa la samaynaya marka? dadka uu dhibaatada u geystay oo dhan kulli saf bay usoo galahayaan, saf bay usoo galayaan. maalinkaa xoolo kale ma haysto, xasanaadkiisii baa la qaybsanayaa. nin kasta waxaa la siinayaa xasanaadkiisi. oma dadka intaa la eg waa xasanaadkaagu wada gaadhayaan. xasanaadkiisii markay dhammaadaan ayaa weli hadday wixii ay sii baaqi yihiin oo weli dunuub lagu sii leeyahay, dembigooda intii laga soo qaado ayaa isaga lagu tuurahayaa buu nabigu calayhi salaatu wasalaam. kadibna waxaa weeyaan naarta ayaa lagu tuura. maxaa yeele intaasuu ibni aadama dunuubtooda dee uma adkaysan kartid. liyaxmiluu awsaarahum kaamilatan yowma alqiyaama wamin awsaari aladiina yudiluunahum bikayri cilmin alaa saaa maa yaziruun. ilaahay tabaaraka wa tacaala ummad marka uu halaagahayo dadkooda madaxda ah iyo dadkooda waxaa weeyaan hoggaanka ah ayuu waxaa weeye tawfiiqda uu seejiyaa, dulmiguna waxaa weeye sabab ooga dhiga arrintaas ayada. waidaa aradnaa an nuhlika qaryatan amarnaa mutra fiiha fafasaquu fiiha faxaqa calayha alqowlu fadamarnaha tadmiira. ilaahay waxa uu leeyahay qolo markay kibraan waxaa loo dhiibaa waxaa weeye dad waxaa weeye dhaalimiin ah oo mufsidiin ah oo faasiqiin ah oo ummadda waxaa weeye ku durdurisa, kadibna arrintaasi waxay soo dedejisaa halaagooda. ummadihii hore waxyaabo waxaa weeyaan lagu halaagay ay ummadda Soomaaliyeed maanta waxaa weeyaan ay gacanta kula jiraan, ama kuwaas ha aadaan hadda waxaa sameeyey, ama kuwo kale oo meelo kale waxaa weeye jooga ha aadaan. sidaa darteed annaga waxaa waajib nagu ah inaan u sheegno oo ay gaadho waxaa weeye fariintan, waana jecella inay gaadho dadka waxaa samaynaya oo weliba waraysyada intay bixiyaan, waraysyada guracan bixinaya, ilaahay ka cabsadaan subxaanahu wa tacaala. ilaahay tabaaraka wa tacaala wallaahi waa billaahi waa tallaahi maalin aan maanta ahayn oo BBC aynu ku waraysanaynin dadkii aad dulmaday ee ku waraysanayaan baa la gaari doona. nabigu wuxuu noo tilmaamay calayhi salaatu wasalaam ruuxa waxaa weeyaan ruuxii uu dulmiyey halkaa raqabada inuu ku dhagahay oo uu leeyahay rabbi sallima dalmani, ruuxan muxuu ii dulmiyey. maalinkaa BBC ku waraysanaysa ma jirto, waxaad rabta aad iska oranayso oo aad oranayso Ethiopiaanka iyo asagoo waa isku mid aad oranayso ma jiraan maalinkaas ayada. arintay goor tahay ruuxa ibni aadamka uu khaldami karaa, mujtamac baa khaldami kara, gobol baa khaldami kara, madaxweyne khaldami kara, qalad baa inaga dhacay qalad ka soo laabta.
toobad keena ilaahay toobad keena subxaana wa tacaala toobad waa maftuux ruuxa ibni aadamka qaladka inuu kasoo noqdo wax ceeba maaha ruux kasta oo ibni aadam waa khaldamaya ambiyada marka laga reebo kullu ibni aadam khataa wa khayru lkhataa'ina tawaabuun waad soo noqon kartaa weli fursad baad haysataan dadka ibni aadamka dhibaatada ka daaya dhulka ilaahay baa iskale subxaana wa tacaala reer gaar ahna ma laha gobol gaar ahna ma laha ilaahay qur-aanka waxa uu ku yidhi walarda wadacaha lilanaam makhluuq oo dhan baa loogu talagalay masaska inay ku noolaadaan baa loogu talagalay libaaxyada inay ku noolaadaan baa loogu talagalay iska dhaaf ruux soomaali ah oo muslim ah oo dalkiisii oo xor ah oo uu ku dhashay jooga ruux soomaali ah oo ruux kale oo soomaali ah taa kan soomaaliya ka sheegan kara ma jiro hebel baan ahay iyo xagay ka baxday iyo waxaa weeye jamhuuriyad baan ahay iyo waxaas baab kale waay wixii qalbigaaga adiga ku jiro adiga kugu jiro laakiin dalka soomaaliya la yidhahda soomaalina waa soomaali meel kastoy waxaa weeye joogaan ama adigu waxaa weeye reerkiina meel gaara u magacow ama dhulkana ilaahay baa iskale subxaana wa tacaala waalarda farashnaaha fa nicma almaahiduun ilaahay baa sameeyey subxaana wa tacaala soomaalina mayna samaynin makhluuqaadkan kalena mayna samaynin ilaahayna makhluuqaadkiisa inay ku noolaadaan ayuu ugu talagalay sidaa darteed naseexadayda waxaan kusoo koobahayaa dadkaas waxaa weeye soomaaliyeed ee qaladku uu ka dhacay inay qaladka asaga ay ka laabtaan dib dambana waxaa weeyaan aysan oogu noqonin oo weli rag baa hadda waxaa weeye midiyaha sii lisanayee inaad halkaa ku joojisaan intii hore baad samayseenna aad ilahay uga toobad keentaan jazaakum allah khayr asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu